Recording has been started. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخر وقراء الله يسير كل عطى شعب الصوماليات ووكيله أو لو عسومية هاي وزير الرئيس الصوماليات وأنشري وزير كدوليس هوذا جاديس كجاد تعيش دولك وعبد الجولاد أحد فرع الصوماليات عبد الجولاد وعن كبر يسد الله عبدين هاي هذا أخيرا تسوق الدولة الصومالية بريها الجماعة هذولا إندوان الصومالية هوذا جلسوا ورثيسوا مع مشروع sidoo kale to waxa ka warsan doonaa siyad dhawaan tini magaalada Kismaayo isla dawladdu wuxuu qaban kartaa siyaasado ku saabsan oo fara badan Cabdi Guuleed waxaan jeclahay marka hore sidoo Cabdi Guuleed golaha National ayaa codka qaadi doona oo website-ka lagu magacaabo golaha national.com iyo Facebook labadaba way qaadi doonaan waxaan jeclahay marka hore isweydiin Cabdi Guuleed waa kee haska faraxay soo marka hore bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah والله معاصن هذه أربعة معاصن هاي صار الشركة عبد الجليد وبايلوت هراء أصار الرئيسة وسركال هراء غيرن كأركعة كشغلين ترين هذا الربع إير ترافيك كنترول كل صغات عباشات رومانيا كندا أمريكا بعدل مركز غير الصومالية مركز دينها وقامت الديارة taawarada iyo raadar la'aanta intaba waan ka shaqayn jiray Soomaaliya iyo meelo kale intaba dhinaca duulimaadka pilot baan ahaa kabacdina waxaan qaatay maadada la yiraahdo aviation management ila master degree oo jaamacadda Australia ku taalo Griffith la yiraahdo soo baxay saas sheegtayna hadee wasaaradda gaadiidka xalka dhulka waxaan ka ahaa wasiirkii dowladda ku gargaarka ahay marka yani barnaamijkan mawduuca ku saabsan duulimaadyada rayidka iyo kuwa militariga intaba aqoon fiican baan lahaay oo ka shaqeeyay xeerarka adduunkuna inkastoo maalin walba ay isbedelaan waan garanaynaa lagu kala hado iyo sida ay maanta yihiin weliba marka aniga tacriifkii yaraayo xaggayga waa dhinacaas waayahay Cabdi Guuleed kala dabaceeba waxaan leeyahay Soomaaliya in badan ayay u ordaysay inay ka xukuumadda hawadeeda la soo noqoto taasi oo Iran nation ku gacanta ku hayeen 39 kila dalka Kenya magaalada Nairobi loo xaray waa maxay faa'iido ugu jirta dalka Soomaaliya iyagu maamulaan hawada waxay uga jeedeen waqtiga qaraab badan u geliyeen maadaama aka wada ay tahay hay'ad caalamiya oo Iran iska tirsan oo hawada ka shaqeysa horta saa sheegtay maxamedow barnaamijkaas hadda adiga baad maqashaan 2002 ayaan markaan wasiirka gaadiidka ahaa aan bilaabay ayaantaas waxaa dhacay dagaal culus oo aniga iyo nimankii UNDP u joogay Nairobi dagaal adag baan dhex maray oo ilaa heer UN-ka la isku dacweeyey waxaan ka furay Muqdisho Center ayaga warqad baan u dirnay aan leenahay waan la wareegnaa wada midowga marka la isku waafaqine pressure darreena uga dhigo xafiis dheer baan ka furnay oo antiradii saaran military ka soo qaatiraadayaal ayaan hawadii galnay yaaradii waan la hadalnay markaas arrintii kalaas noqotay runtii laga soo bilaabo maalintaas adigu waana dhacay markii dambe waxaa la 6 bilood baan ku wareejinaynaa laakiin ujeedadoodu waxay shirka immigraati la saaray waxay ogaayeen 6 bilood gudahood dowladda lagu dhisay heshiisyo dhowr aan galnay arrintii maalintaas bilaabatay way horta muddo maanta laga dhabeeyay waa muddo ku dhow 15 sano dowlad kastoo timaada waa daba socotay maxaa loo daba socdaa weeye waxay ka mid tahay sabirka waddanka hawadu weliba airspace-ka Soomaaliya وكون يدوك عالية هم ليس إنجي حدود لنا حاجة عوالة مركا يعني والله ودي بنا يا الله ده وصعدا وأدلكي علمكي وأسوي لنا جاردو ممكن نكون مريان وهذا كان ما نبقى ورتين الصورة المركا بيرجع عصرك على صارو لوك عليها أركيسا مركا جاردو دلك على قرمرته أنا قول عام بأن لو الشيء إلى الصوماليا
kor marayso ama picture ahaan bay u arkaysaa oo maabkii baa laga tusaaya marka waxay la mid tahay hawadaadu waa ambassador wareega weeye sida diyaaraduba u tahay ambassador wareega oo diyaaradda calankaa ugu rakeeyan yahay ahmiyadaas waa number 1 labana waxa weye dhaqaalay leedahay service adeeg bay leedahay subcad bay leedahay waxay leedahay technical support kala duwan oo noocyo badan ah xiriir caalami ay leedahay oo qofkii hadda pilotkii hawadaada soo mara oo la hadla dadka kuu jooga air traffic controlka oo maanta adiga serviceiso magaca Soomaaliyeed baad ku siinaysa adiga magacadeeda kuma siinaysa qofkaasi wuxuu ogaanaya halkaa dal xora inuu joogo oo Soomaaliya la yidhaahdo waa adeeg diyaareed bixinaya oo ammaankii diyaaradaha sugaya oo diyaaraddu meeshay marayso iyo joogka ku duulayso iyo temperatureka kore iyo dabaysha kore iyo raadiyaasha yihiin iyo waxa qalab haysta inta waad u sheegayso marka qofkaasi wuxuu dareemayaa marar badan pilotska xataa way u gudbiyaan basderigooda marka macnaha dalkiiba ku dhex jiraa wey qofkaas adeeg buu ka soo qaadatay wuxuu la mid yahay qof inta magaaladii soo aaday ka soo adeegtay buu la mid yahay ahmiyadaas kale markaa ku ahmiyadaan la koori karin oo runtii dhulku inta uu faa'iidinaya abay leedahay hawada inaad kontrolshana waa laga maarmaan maantana gobolkii jirtada waayahay cabdi aan wax kale u dhigo Nairobi ayay joogeen dadkan kaarsoolaa hawada Soomaaliya kadib markaan aragnay qalabka isticmaalkeena ma ahayn qalab hawo lagu kaarsooli karo Nairobi oo la qalab gabooday wax shaqo ay qaban karaan baan Soomaaliya hawadeedii waa tan oo dadal kale joogeen maadaama aan ognahay inaanay haba yaraatay wax badan oo ay ka kaarsooli kareen aanaysiin diyaarada liiska qoran oo hawada maran maaha waqtigii Soomaaliya aadu beerta tahay ama dawladaha kala faaqad hal ah sidoo ilaalin jirteen hawada waxa sheegaysaa intii ka horeysay meebta kadib intii ka horeysay Soomaaliya ee awoodda ay lahayd gacanteeda ku haystay sidoo loo kaantrooli jiray waxaan ognahay Nairobi inaan habayay saxbada ay kaantrooli jireen list diyaarada iska haystay oo kaliya qalabna aan haystay wax kasta ku ogaadaan soo wuxuu kaantrooli jiray horta intii dawladdu jirtay hadee raadjiray oo diyaaradaha taaka looga socday diyaarad kasta oo soo gasho dalka daqiiqad gudaheeda anigoo raadaanka joogaa laga soo gudbin jiray haddii diyaaraddaas islamarkaaba Somali Airlines iyo Civil baan la hadli jiray hadday garan waayaan oo ay aqoon waayaan diyaaraddaas dabcan diyaaradaha sibilkaana iyo military waxay la noqdeen diyaarad kastoo dalka loo soo socota waxay qorataa waxa la yidhaahdo flight planka waqti ka hor bay soo gudbisanaysaa haddayna ahayn airline caadiya oo route ku socota oo scheduled ah hadday charter tahay ama diyaarad military tahay ama wafdi gaara wado ama dan gaara leedahay dhowr beri ka hor ayay codsanaysaa inay imaanayso waxay sheegaysaa wax walba oo diyaaradda ku saabsan waxa dad saaran waxa qalab saaran shidaalkeeda nooceeda hawada ay ku duusho war wax kasta diyaaradda ku saabsan waa sidii waxay la mid tahay si adoo raajad lafteeda saaraya markay soo gudbiso ama waa loo ogolaanaya ama loo jiidaya haddii loo ogolaado liiska la ogolaaday oo dhan iyo diyaaradaha schedulska baa raadaarka loo gudbinaya anigu waan haystaa diyaaraddii la aqoon waayo ama barbishir awadan oo Somali Airlines ay sponsor gareyn weydo ama Somali Civil Aviation uu sponsor gareyn waayo isla markaa diyaaradaha lagu kaxinayo hadday diidaan inay degaan waa la duqeynayaa hadday degaanna garoomada militariga xataa xawar lama keenayo garoomada militariga midkood baa lagu dejinaya markaasna kuruwa inta laga qaado meesha waa diyaaraddaas gabigeedana la baaraya x-ray baa la saaraya wax qalaba u qarsanay jiraan hadda maanta kuma jirtaba saasaan ku kontrooli jirnay sidaasaan ula soconay markay diyaaraddu soo dhawaato hadday soo dhawaato oo 30 kilomitir iyo 20 kilomitir soo gaartana markaas arrinta diyaaraddu waa ka baxaysa madaxweynaha noo taallay waa ogtii ciidanka difaaca cirka saasaa loo dhisay sam diyaaradii
مسرحية الإسلام كهذا الوشي دينية أو قرنية هو حلقة صحابية ديارة التعبير في تخيصه ومقتصة كراعده أما ميركا الصواريا كراعده أما قرابين الميليتري والبلدولي يحضر كراعده مركز ساسا لوكو ترويج الواضح وهي تعلم لها إن نيروبي أي ديال كفوت شيء هو تين بجاز كسماعي أي صوت ديال داسي تاريخان مركان قلنا ضد وحامسين إن ديال داس صراحة لقلها شرعيا ديال الآن أقولها شهر نوع صحيح أو أسلوب بدبتي دلك الصومالي دلك أنا كتير دمبي قهرت بفور القرار يعني حلوي هاي مركز خير ديال تاريخ تاسو عمل كلامات فعلم لها كسمايو إن دول بشرع كصوص عرفتي إلا إذا حي وحلا وحي وضع في شكل ما دا وين متصل مرا كسمايو أصلا إذا كسمايو كبحيا لو وين متصل مرا وها كاسة هناك كاسة ديارة داخلنا أنا وح أقراشات يلا شيء أنا أفيش الصومالي كهيدا فرد حالة كاسة السياب والنقرية ديار داخل سابقا في أغمها ديارة الصومالية وضلوا عيه أمر كستا إن ديارة حقيقة بطو وضلوا عيه أمر كستا إن ذلك كسو بشو حقيقة بطو سيدا وحلوة قبل قرية تايدها محاسة كلمة كرا أو لباسة حديث دا أوسي صعبة horta marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh kun iyo kow jeer iyo in ka badanba in diyaaraddaas iyo dadkii saarnaaba inay kismaayo horta nabad ku soo gaareen oo aysan hawada lagu qarxin ama aysan hawada ku burburin horta ilaahay mahadi weeye dhulka mar haddii la wada joogo dhulkaa lagu xaalaya taas waa mid waxa yar haddaan dib u noqdo markii barnaamijkeena laga hageeyey nairobi innaga aad bay nagu ahay qaran ahaan soomaali ahaan sumcaddeena dhan bay dilaysay maxaa yeelay ninkaas raagayaasha kharaabkaa fadhiya anugu waa tagay guriga ay wax ku samayn jireen gurigana vinti raagayaasha ugu jireen markaasu wuxuu leeyahay gijiri ku yaala markaasu wuxuu ku leeyahay diyaaradda markuu la hadlayo muqdisho center buu leeyahay mana aha hadde marka aad ba intaas kugu filan حتى مضى على نيروبي يعاصي مقدشو بوليه كورسان كسو مقدشو تأسمر كورس إلهي بأن نقبت بادية ابنه وكمر لي بدة فهذا هو وسائل الله صعطة وذلك عندما هذا اللي هو متشوقنا أذنكم بيشا تشوكتان وعدوكتين ولاط مران وحبا شكاد اثنين وشكبا معا هذا عمر طوال وحول يا ترسبات بالوقارية وعلى الغين يوم ودن وانقلب ودن محل دا حدود قرن ليهي او ديارات كانتين دا الحريركين نمكا اصلا سيارين او ديارات امبرنيشن هيسن كوسو دري ومقدسة دلعن سواء هذه المال عطري يلا تجن عادي واحد كستوى هرطة قدعة عدينة تلتجارة داس وانا توانك لما دفنا ودنك عندي اركا سوايا العادة حرير كبرية مسؤوليته وعقابي عندي السماشي هرطة بالكلية انت بحيلتك يكروني جارتها صارنا جبت موضوع ليا حتى بتكونوا وما أقلاني يعني دونا أما صومالي عادل وويا سوي صومالي عادل المكيان عادل عندك عادل محايا بايلوت أبر يعني خلط نوع عصو كراءة automatically وستبني لما دولي كرا أدوم كرنا على قليل يا ريبوت كرا أي كيو أوريدي وغير جسر كريني وخصم إنسان تكستا وأجيش الكأه أدوم كرنا وعلى الرياء ولا تكون تكايوا إنسان تكستا حتى هو أمير مثل إلهه لو أنت رأيت سدواتي أما تلك سدواتي لما أرجع سدواتي وحاول يوارد كوركرينيا markaas la wareejinaya nootam waa la yiraahdo notice erman talway si loo fogaado maxaa moodaa dal xuduudis saaran tahay xaalad hoosayl ah nin fayloodo diyaarada soo aaday
أرض البايلوت جروب هكذا مريض إما الديارة واحد ديارة سوالية غير مثل أنا رأيت كل شيء سومالي ديارة مبلغة مانت محايا لي دولة دينو ولي ما يسجارين ما قوى قد عيادة إن الديارة رجسر كريان كل سفر سيانا وحانو لنا تارجل 6 أسكر سيارة بانلنا ولحظكي يأس أصوالي كتاغي marka diyaarad kasta Soomaali leedahay waa inay taageero Soomaali wadataa diyaaradii aan taageero Soomaali wadan ilaa uu nimanka wadanka qofka talaado dalka iskale dalka ka jiraysan tahay dalka u diiwaan gashan tahay insurance dalkaas uga jira maintenance-ga dalkaas iskale inspection-ka dalkaas iskale aykeeyo dalkaas ay wareegsan karaysan tahay marka ay anta Soomaali target diyaarad kale ku taalo sida awreed waxay taxdir talaate iska loo waxa la mid ah baaburkaadu iska leedahay hadii qofka ku qorayo adu bani shaqooni laakiin Soomaalidu awood bay u lahaan lahayd dawladdu ma qaarba jirto dhowr service oo la xiriira aviation-ka oo hadda awoodi karta inay qabato waxa kamid ah licensing-ka in ayagu noqdo ruqsadaha pilot-ka iyo air traffic control-ka iyo engineer-ada Soomaaliyeed dhulka ka shaqeeya waxa kamid diyaaradaha inay register gareyso waxa kamid diyaaradaha inay inspect gareyso oo ciladooda iyo waxooda iyo maintenance-gooda iyada laga diiwaan geliyo waxay sameyn karaan meesha ayagu ay Soomaaliya aysan awoodin dad bay soo karaysanayaan khalaas marka waxaan uga jeedaa diyaaradaas khatar baa la geliyey dadkaas khatar baa la geliyey kuwa dhulka joogana waa la geliyey wax kasta dhici karay wax kasta ayaa dhici karay laakiin rabbigii badbaadiyey dadkaas baa maanta iskale pilotka iyo dadkaas crewga warkooda waa ku dhamaakaas ku dhegyahay diyaaradda maxaa ku dhici kara diyaaradaasu waxay u badan tahay nimanka muslimiinta Kismaayo jooga hadday iyagu xag walba gudbayaan ayay u taalaa horba waxaad ogtihiin hawada dalka waxaa iskale dowladda hadda federaalka oo dal kasta ah dowladda dhaxaa iskale Canada jooga oo federaal waxa lagu xajiyeesha ku saabsan ama airport ha noqoto ama ha noqoto dowladda waxaa iskale dowladda dhexe America waa la socotaan FAA noliya iskale Federal Aviation Administration la yiraahdo ma soo dhexgeli karaan shaqada kuwa lahaa nin maamul goboleed jooga oo haddii aan la kuurayahay shabada culus aqoon u lahayn markaas waa gaarkeeda ma soo dhexgeli karaan dowladda sarta ka heli kartaa kolley hadda diyaaradii dhulka hadday taallo war la istaxweynayaa mana aha maarata arrin ciyaar waa arrin khatar ah oo tegi karta international crisis bay tegi kartaa adduunka oo dhan waa cambaarayn baa ka imaan karta walaa loo dhan yahay iyo security kulli haddaan dowladdu asgocoor dhihi jirin noqonida iyadoo aysan aamusin kiis bay haysataa ma garateen siday iyaga loola macaamili karaa dalkii ay kasoo kacday isleebadku ay ugula xisaabtami kartaa arrintaa iyada waxaad ogaataa ninka la yidhaahdo maxamedow innaga diyaaradaheena oo ruqsado haysta diyaaradaha ka baxa Soomaaliya yaan uga jeeda ayoo ruqsad haysta oo flight plan qortay oo wax walba qortay maana la yidhi soo mara meesha la wajeef marka intaas saacadood oo waanaya wajeef mas'uul yimid su'aal u socday yimid xagga u socday yimid taktar lahaa qolo marka baryaha maqlay waxaa u socday baa lagu celiyaa muqdisho lagu celiyaa muqdisho waxaa sababtii isalayaa laakiin bal wajahaya arrintan oo nin kala tuuray ka waran oo ayagu haddayna ku faraxsan yihiin kenyana inay tiraahdo haddaa rabtaa dowlad ka tago ku hayso saacado tira badan caasimadana ay diidaan maxayna kugu muuqataa diyaaraddaas ruqsaddan oo xamar ka kacday ama gaabgacyo ka timid ama hargeysa ka timid awood ma u leedahay inay baal marto meesha la yidhaahdo wajeef ma laha weye taa macnaheedu waxay ku dhammaanaysaa inagu qaran ma nihin halkaas arrinta ku dhammaanaysaa pilotka soo xadgudbay oo diyaaradda keenayna
qaran nooma haysto taawarkii ay ka soo kacay ilaa diyaaradanu markay soo kacashay waxaa ka soo kacday ama wilson actually Nairobi ka soo kacday taawar baa jira raadaar baa jira kulli baa jira ayaa soo kaxeeyey dowladda ka soo kacayna qaran nooma haysto baaradkii diyaaradda keenada qaran nooma haysto mid ka yiri sharci igu soo dhigay qaran nooma haysto Soomaali qaran nooma haysto marka dowladda Soomaaliya taala talaabo ka qaadayso haddii rabto aamusaysa dinna ma laha haddii kaleba kiis baa u yaalla meesha waa cadda adduunka oo dhan waa arkaya miyaan kala go'an maya waan kula hadlaya waxaa jirta waqtigii madaxweyne xasan dalka haystay in laba jeer wiil gudihii ee laba diyaarad yimaadeen diyaarad waxay ku dhacday diyaarad weyn bay ahayd waxa ku dhacday meesha maxay cabiska iyo askiga dhexdooda madaxa dubta iyo alaabta la sheegaa diyaaradna wiilka gudihiisa waxay fadhistay dhalaan shirku weynaa laanta buur agtiisa ay haystay diyaarada bay ahayd waqtigaa isaga ah inkastoo inaan lagu xukumin oo dowladda Soomaaliya markaa iyadu aanay xukumin aanay fiishkeedii xukumin soo muuqato wax talaabo laga qaadin laakiin amni darra ay ka tiiraan lagu eedeeyay ma lagu eedeyn karaa inay amni darro ka samaynaysay Soomaaliya diyaaradda tan iyada ah iyo amniga marka laga eego ma loo qiimeyn karaa inay bariik la iman karaan marka ma afka duuban dad talaabo laga qaadin meel kasta ila waa banaan cidla ah iyadoo ku daro waxa dalaa meel kasta oo fariisanayaan in loo isticmaali karo yana duuda kala laftiyo ka hadli karin yani amisoon mas'uuliyad ka saaraan karin taayada ka waraya automatic way markaas awalan xataa hadii Nairobi laga xukumo dalka inta dalku dowlad baa ka jirtay ciidan baa ka jiray hawada هذه كلمة مالية لوي وعلى جرنا نواجه لكن ولي حدود أما مدعدات أو مدقدات أو مدولات وحي الدولة ومركز كتير دلك أيام الشيوخ دلال وحركة ثانية مركز قوة هذا الشيء يسوي جراها أنا خاصة بأي الدولة دون كعب الشيء دولة دون إكسبورتوية رتاعي دولة دون الدار تاعي waxay ahayd waxa saarnaa inay baartay hadday xataa burburtay waxay ahayd in inta la qaado laboratory la geeyo diyaaradda tan waxay waday la ogaado labada jeerba marka lama yeelin haddaan la yeelin oo la iska iloobay macnaheedu waxa weeye waa mas-uuliyad darro qaranka loola kaca ama si aqoon la-aan loogu bareeray wey wax kasta oo noocaas oo kale dalka soo gala waa in lala socdaa weliba waqtiga hadda sun baa saarnaan karta nuclear baa saarnaan kara xabada qarxi doono carruurta iyo xoolaha iyo dhulka ku qarxi doona saarnaan kara waxa weye inta ciidan lagu wareejiyo oo la furfuro ama la qabto oo la baaro weliba explosives iyo wax lamida laga raadiyo si khayr caadiya loo baaray marka waa nisibdaro taas laakiin ilaahay baa iyadana naga koriyey inkastoo aynu maqalnay in wax badan la isticmaalay taagtikadaas diyaaraddan iyada ah ma samayn kartaa duulimaadno dalka gudihiisa hadda oo maadaama ay jiraan dee tuulo kasta iyo degmo kasta ay hadda loo xaaray meel garoon ah oo diyaaradu fariisan karaan iyadu ma samayn kartaa inta kastaa ka duusho inay degmooyinka bannaan fariisan karto kasoo qaad afmadu kasoo qaad degmooyinka kaleeteed Soomaaliya dowlad goboleedyada kale kasoo qaad maadaama aan ciidan jirin arrimaha hadday samayso maxay iman karaan horta hadda lafta diyaaradii dhulkii way garoobkii Kismaayo fadhidaa nimanka Kismaayo jooga iyo dowladuna waa iskhilaafsanaayeen sharciyan diyaaradda faktada in la taga maaha waxaan filayaa dowladdu inay mar horeba qolyaha ay khusayso oo sida maaragtay amisom iyo ay already ku horgelisay diyaaraddaas aysan kici karin dee garoonkana waa la wada joogaa haddii markaas amisom ka diido oo amisom ay iyadu dee foodadii qayb ka qaadato waa meel kale laakiin waxaan u malinayaa inaysan diyaaraddaas mar dambe kici karin legally iyo si walbaba marka loo eego
meel kalena uga doodi karin meelaha kan diyaaradaha yararka oo hadda dalka u kala dooda Kenya iska wadane waana aad habkasay ku shaqeeyaan hadda waxay ahayd nidaamka caalamka u qoran diyaarada dalka haddaan laga lahayn asayna special permission qaadanin oo dowladdu baahi ugu baahanin waxa weeye inay dadka soo qaado muqdisho kaliya dejiso ka noqoto muqdisho shan waa jiro oo hatta marka qaarkood diyaaradaha loo ogol yahay emergency kaliya inay ugu soo degaan mar waxaa loo ogol yahay shidaalka inay ka qaadan karaan mar waxaa loo ogol yahay oo kaliya inay baasjeer ku dejiyaan hal qofna iska qaadan karin marna waxaa loo ogolaadaa marka adigaba kasoo qaadanayso adigaba ka qaado asaga qaado haddii aniga la yidhaahdo muqdisho meel ahayn buu ka qaadaya qof waa inaan na wajeer kasoo qaadan karaa waa inaan gaarisa kasoo qaadan karaa waa inaan Mombasa kasoo qaadan karaa yani hadda xiriirka aviationka oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya baad caalamka oo dhan kama jiro maxaa yeelay adduunka xisaab ku socda marka nimanka Kenyaanka oo hadda mar walba soo duulaya oo inta nin Soomaaliya shaarkiisa lagu soo geliyo diyaaradda Soomaaliya waxaas waa khayr sharci waxay dowladdu u baahan tahay inay dib isugu noqoto oo la xisaabtanto bacda aviationka expert Soomaaliya waa jiraan oo yaqaano waxa kan laakiin dadkii hore shaqayn jiray wax ka jooga ma maqalay inaan dowladdu shaqayn maalmahan kuwaas marka waxaan uga jeedaa diyaaradaha kale inay u kala duulaan ma ahayn gobolladeena dhexdooda waa qalad marka taasaan uga jeedaa waa gartay maxaad kula talinaysaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta kaa dhegeysanaysa marka loo eego dhinaca diyaaradaha iyo isticmaalkooda iyo weliba maxaad kula talinaysaa dowladda federaalka lafaaanteeda hadiiba codkaaga maqashada dowladda horta dhinaceeda haddaan u hormaro midda dhexe waxay u baahan yihiin anuu hadda siyaasadya kalama hadlaaye sooda kala codtaan inay aviationka dhamaystiraan isticmaalaana dadka aqoonta u leh meel aviation looga baahan yahay markii saaxiibtinimo iyo qaraaraysi iyo kooxaysi lagu shaqaaleeyo ama lagu waxaa kala soo baxayaan cilmiga loo daayo taas waa taas serviceskeeda ka dhiman ama adeegyadeeda ka dhiman oo ay kamid yihiin in diyaaradaha la controlo in Soomaaliya bixin karto laysikii diyaaradda in Soomaaliya bixin karto shatigii in Soomaaliya bixin karto pilot trainingkii in Soomaaliya bixin karto pilot licenseskii engineer licenseskii waxaasoo dhan wax la awoodo oo Soomaaliya samayn jirtay weeye maantaana cilmigu ka badan yahay dowladduna waa ka dacday dhinacaas waa dhinacaas dhinacaan haddaan usoo jeesto Soomaaliyey inaanu dadalna ahaano oo ka fakerin inaan dalnahay Soomaaliya la yidhaahdo oo dhul iyo cir iyo bad iyo dad iyo haddii aan la koranayo kaabayaal dhaqaale iyo lex nahay dabeecad iyo xoolo iyo beero iyo inaan nahay dad noocaas isku xisaabtamaya iyo inaan fawdo wadayno innaga horta noo taallaa joyskaas haddaanu amni iyo kala dambayn iyo dowladnimo doorannana waa inaanu sida ay tahay ugu dhaqanaa doorka ay kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu way cad yihiin doorka ay kala leeyihiin golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanku waa inay kala cad yihiin iyo inta kaloo la halmaasha ma dhexi karayso inaad xeelal adduunku watana qaadano sida madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo haddii aan la kuuran yahay wasiir iyo xildhibaan ana u dhaqano sidii waxaanan garanayn adduunku waa na eeganayaa waana fiirinaya ama magacyadooda aan u dayno magacyada adduunka samaystay aan faraha ka qaadno aan noqono dad xoolaheena aan dhaqan jirnay sooda ugu dhaqmaash ama si ay tahay no aado waxyaalaha hadda aan maqlayno oo ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo madaxda dhexdeeda iyo ma aha wax baa qurux badan shacabkuna kuma farxayaan midda kale qofku markuu mas-uul noqdo
ومنع النقض أنت وكعرنا وإسير الرأي أنت المنع وياته حدنا إن هذا حكايناته وأد أفهمت عرفتين حتى رسينا ما أنا هبورين تكتو مرة دول منع عجوات قرين قرب ما كرهته قرب لكن منع عادي يشبد عادي إن دولة حكايناته وأدوي محاكرة مهمة dadku dawladnimada inay bartaan weeye wadaniyadana inay bartaan weeye laguma dhasho raadi muqdisho wuxuu dhihi jiray ma loo dhashaa wadani mise waa la iska dhigi karaa marka way isu jawaabeen waxay dhihi jireen waa loo dhashaa intee waa la iskaga dhigi karaa taas sax maaha yes waa loo dhalan karaa waana la iska dhigi karaa in la iska dhigaana muhiima maxaa yeelay haddaadan baranin wadani ma noqon kartid marka waxaan leeyahay wadaniyadda iyo mas-uuliyadda inaan baranaa fiican intaanan ku ordin haddaan annagoon garayn mas-uuliyadda ku oranno madaxweyne ku oranno wasiir ku oranno ra-iisul wasaare ku oranno oon dhan hadhowan baranaya waxaad la mid tahay baabuur adigoo saaran oo darawalna ahayn ummadda isku leynaysaa dhulkaad ku gasanaysaa marka mas-uuliyaddaan ku cararayno annagoon aqoonteedina lahayn waa nasiibdarada نهاية دولتي من أمر متنوع بالمستقبل سبحانه قرننا رجعنا سواء على سواء على ورقفك مسؤوليات داسك أرجع يعدون إلى إلى كبقين أخوان الراسل ولا يندسوا نقولسوا ولا ينهاريسوا سلام بأهانة تجلس كتاكي سفرس كتاكي مركب عندنا أمة الصواري المالك جمتنا عرض باقنا ولا ليارو إلهي وحوين من السوق ورحمة نصيحا ومعان oo nala ku haysto ma waxaan garan weynay in wadaagga waxa aan haysano awadeed nala ku haysto cid walba daris iyo mid fogba ay nagu haystaan waxa qiimaha uu leeyahay awadeed waxaan ku haystaa iyo waxaan ku fadhiyo waanan fahmay waxay tahay marka waxay ku fiican tahay ummadda Soomaaliyeed inay dib u soo noqoto runta isu sheegaan runna ku wada hadlaan weligeed dib u heshiisiin lama sameeyo Soomaaliya shirarkii dib-u-heshiisiinta lagu magacaabay kulligood waan joogay hal midoo dib-u-heshiisiina kuma jirin kii arkaa ugu dhawaa inta kale waxay ahaayeen shimbirayo wanaas arrinta horan doorta waxaa u dhahday unbay ahayd marka niman yahow gabdho yahow soomaaliyay dalkan haddii laga naxaayo sidaa loo dhaamo dadkan haddii laga naxaayo sidaa loo dhaamo barwaaqadatan haddaynan daraynayn anaan daraynayn dadkaa loo daaya markaas xabo inay qaataan intaasoo soomaali dhiiraa laakiin taas igamaha dambe waxaa iga dhab ah inaan jeclahay Soomaaliya dadkeeda dalkeeda diinteeda dadnimadeeda xuduudaheeda ilaahayna ha u xafido ayaguna ha xafitaan intaasaan jeclaan lahaa ku tuurasoo intaa waxay nagu dhamaadeen waraysigan caawa lalahayn ee ka waraysan aviationka iyo diyaaradaha iyo weliba tala bixintii dheeradii dadka Soomaaliya siiyey wasiir hore Cabdi Guuleed aad iyo aad maasanta boqol soo dhawo golaha 1960 alkaga waxa qaaday wadka ka wada guuleysan golaha 1960